kulanti waxaan wanaagsan akhyaaray halkani waa Qool Media Tv waxaad ku soo dhawaataan war wixii naga soo gaaray daafaha caalamka iyo soomaalida qodobo xiiso badan ayaa daawan doontaan intaan ku wada jirno xilli tirinteena wareed balse haatan waxaad isku diyaarisaan qodobada warka kuwada ugu doorka roole ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xilkii ka qaaday guud ahaan madaxda sarsare oo ka tirsan wararka nisa waxay tahay ujeedada israiil ka leedahay ku biiritaanka midowga Yurub warbixin ayaan idinka haynaa gudoomiyaha hore gobolka Gado ayaa lagu xanibay Muqdisho iyo amarkii Roble oo shaqayn waayay intaas oo qodobada warka kuwada ugu doorka roole imigaatana waxa isku diyaarisaan faafaynta qodobadaas iyo kuwa kale gudoomiyaha hore gobolka Gado Cusmaan Nuur Xaaji Macalimo ayaa mar kale saaka lagu xanibay magaalada Muqdisho iyadoo loo diiday inuu dhoofo degmada Galbeed ee gobolkaasi Gado Cusmaan Macalimo warbaahinta la hadlaya sheegay inay tahay markii afraad laga celiyo garoonka isla markaana la isortaago inuu safro Galbeed taasoo uu sheegay inay ka dambeeyaan farmaajo iyo Cabdullaahi Kulane arrintan ayaa imanaysa xilli maalin ka hor ra'iisul wasaaraha Soomaaliya soo saaray amar uu ku mamnuucayo in garoonka diyaaradaha Muqdisho guud ahaan dalka si bareer ah looga celiyo qofka ka dhoofaya kaasoo muuqda inuu shaqayn waayay geesta kale wararka naga soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxay tibaaxayaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xilkii ka qaaday mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan hay'adda nisa ra'iisul wasaaraha ayaa xilkii ka qaaday agaasimiye shaqaalaha hay'adda nisa iyo taliyihii nabad sugidda ee garoonka Cadda International Airport afhayeenka xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa sheegay in Cabdullaahi Kulane iyo Cabdiwaab Sheekh Cali xilkii looga qaaday kadib markii ay ka hor yimaadeen amarka ra'iisul wasaaraha dhigaya in qofna lagu celin karin garoonka diyaaradaha caasimadda Muqdisho sidoo kale wuxuu afhayeenku sii xoojiyeen marnaba loo dulqaadan karin in qof muwaadin ah lagu celiyo garoomada dalka xilli la filayo in dalka ka qabsoonto doorashooyinka lagu heshiiyay 27 May xilkaqaadista uu go'aan sameeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa daba socota dhacdo saaka ka dhacday garoonka Muqdisho lagu xanibay gudoomiyaha hore gobolka Gado Cusmaan Nuur Xaaji Macalimo kaasoo rabay inuu u duulo magaalada Galbeed Cusmaan Macalimo saaka warbaahinta la hadlaya sheegay inay tahay markii afraad ee laga celiyo garoonka isla markaana la isortaago inuu safro Galbeed taasi oo uu sheegay inay ka dambeeyaan farmaajo Cabdullaahi Kulane bismillaahir rahmaanir rahiim ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble markuu arkay qodobka 22aad ee dastuurka kumeelgaarka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya faqradiisa koowaad ee dhigaya qof kasta oo si sharci ah ku degan dhulka jamhuuriyadda waxa uu xaq u leeyahay inuu si xor ah u degi karo uu dhex socon karo meel kasta oo dalka ka mid ah kana bixi karo iyadoo la tixraacayo amarkii uu soo saaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble 22 Juulaay 2021 ee sida cad u qeexayay in qof muwaadin ah aan laga horjoogsan karin inuu u safro ama ka soo dego deegaan ama gobol ka mid ah jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lagana jawaabayo falkii maanta ee muwaadiniin Soomaaliyeed looga horjoogsaday si sharci darro ah in ay ka dhoofaan garoonka Cadde taas oo xadgudub ku ah amarkii ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo xuquuqda dastuuriga ee muwaadiniintaas ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu xilka ka qaaday Cabdullaahi Aadan Kulane madaxa shaqaalaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed 2 Cabdiwaab Sheekh Cali taliyaha nabad sugidda garoonka Cadde ra'iisul wasaaruhu waxa uu xaqiijinayaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay ku jiraan kuwa maanta safarkooda laga xayiray in ay xor u yihiin in ay u safraan xilli kasta oo ay doonayaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu mar kale ku celinayaa in talaab sharciga waafaqsan uu ka qaadi doono cid kasta oo ku xadgudubta dastuurka dalka kuna dhiirato carqaladaynta geedi socodka doorashooyinka ee isaga uu mas'uulku ka yahay wabillahi tawfiiq Nigeria ayaa heshay 6 diyaaradood ee ugu horeysay ee ka iibsatay dalka Mareykanka ciidamada cirka ayaa sheegay Khamiista 4 sano kadib markii Mareykanku ogolaaday in laga iibiyo wadanka galbeedka Afrika diyaaradaha weerarka fudud si loola dagaalamo kooxaha kacdoonka wada ee dalkaasi sida ururka Boko Haram Nigeria ayaa heshay 6 ka mid ah 12 diyaaradood oo nooca loo yaqaan Turbolite oo laga soo diray gudaha dalka Mareykanka si ay gacan uga geystaan la dagaalanka amni darrada sii kordhaysa sida ay sheegeen ciidamada dalkaasi Nigeria dalka ugu dadka badan Afrika ee Nigeria ayaa wajahaya dhibaatooyin dhowr ah oo dhanka ammaanka ay ka mid yihiin kacdoon jihaad oo 12 jirsaday oo ka dhacay waqooyi bari isku dhex maray xoololeyda iyo beeraleyda bartamaha aftoobka madax furasho ee guud ahaan
dalkaasi Nigeria. bishii August 2017 maamulkii madaxweynaha xilligaas Donald Trump wuxuu ogolaaday inuu ka iibiyo Nigeria 12 diyaaradood oo lagu farsameeyay shirkad ku taal gudaha dalka Mareykanka. madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa muujiyay inuu bartilmaameedu yahay Rwanda dabagal ku samayso kiiska basaasista Pegasus. bartilmaameedyada ayaa sidoo kale waxa ka mid ah madaxweynaha talada dalkaasi haatan hayay ra'iisul wasaarayaal hore. mashruuca Pegasus ayaa baadhitaan ay sameeyeen taladaha warbaahinta caalamiga iyo NGO-yada kaasoo lagu soo bandhigay sida sirdoonka Pegasus ee shirkadaha Israiil NSO Group ay macmiishada dowladda ugu xadgudbeen inay basaasaan saxafiyiinta dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqul insaanka iyo siyaasiyiin kale. xogta la helay waxay muujinaysaa in ugu yaraan 7 dal oo Afrikaan oo ay ka mid yihiin Togo, Morocco iyo Rwanda ay qayb ka yihiin isticmaalka adeeggan basaasida, iyadoona dadka reer Rwanda lagu tilmaamo dadka ugu badan ee xuseeya isticmaalka adeeggan basaasida. dowladda madaxweyne Paul Kagame ayaa sida muuqata la iskaraysay in ka badan 3,500 oo nambar telefoon tan iyo 2016 waa bartilmaameedka Rwanda ee basaasida internetka. sida waxa lagu sheegay sirta ama xogta la helay, balse wax waliba way adkaadeen kadib markii dowladda Rwanda ay beenisay adeegsiga software-ka. wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Israiil ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in Israiil ay dib ugu biirayso midowga Afrika iyadoo noqonaysa waddan korjoog ah. tallaabadan ayaa sida uu qoray wargeyska ka soo baxay Israiil waxay timid ku dhowaad 20 sano kadib markii Israiil ay weysay xubinnimada ururkan uga dambeeyay markii laga bedelay magaca la sameeyay midowga Afrika. waxaa lagu soo waramay in safiirka u jooga Israiil magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya waraaqiisa aqoonsiga u gudbiyay gudoomiyaha midowga Afrika Musa Faki Mohamed soo xubin kormeera uga noqdo ururkaasi. kulankaas ayaa ka dhacay xarunta AU-da ee caasimadda dalka Itoobiya. warbaahinta Israiil ayaa soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda Yair Lapid oo sheegay maanta waxay dabaaldeg u tahay xiriirka Israiil iyo Afrika. wuxuu intaasi ku daray horumarkan dhinaca diblomaasiyadda waa natiijada dadaalkii wasaaradda arrimaha dibadda laanteeda Afrika iyo safaaradaha Israiil ee guud ahaan qaaradda. Lapid ayaa sheegay in Israiil hadda xiriir fiican la leedahay 46 waddan oo ka tirsan qaaradda Afrika. maamulka Falastiiniyiinta ayaa horeyba door noocan oo kale ugu lahaa ururka midowga Afrika. Israiil ayaa isku dayaysa inay adkayso cilaaqaadka kala dhexeeya 55 waddan ee xubnaha ka ururka midowga Afrika si ay tabiyeen warbaahinta dalkaasi. arrimaha kale sababta waa ku biirista ururka Afrika ee Israiil waxaa ka mid ah in Israiil ay doonayso sidii ay u badin lahayd wadamada ugu codeeya arrimaha ay ka doonayso hay'adda caalamiga sida golaha ammaanka qaramada midoobay. waxaa kaloo Israiil doonaysa baa la yidhi inay kala shaqayso arrimo ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada, xakamaynta Covid-19 iyo kobcinta ganacsiga beeraha. qaar ka mid ah bogagga internetka wax u qora ee Israiil ayaa shaaciyay in dowladdu ay dhowaan xiriirkii diblomaasiyadeed dib ula bilowday dalalka Chad iyo Guinea kuwaasoo ay hore xiriirka uga jartay. sanadkii 2020 Israiil ayaa sidoo kale heshiisyo la saxeexatay wadamada Suudaan iyo Morocco. bishii May la soo dhaafay madaxa midowga Afrika Musa Faki ayaa cambaareeyay duqeymiya Israiil ku fulisay marinka Gaza iyo arlada reer Falastiin iyo weerarada ay ciidamada Israiil ka geysteen masjidka Al-Aqsa. Faki ayaa sidoo kale shir midowga Afrika ka dhacay sanadkii 2020 ku sheegay inuu ka soo horjeedo sida uu maamulkii Donald Trump u wajahay qorshaha nabadeynta bariga dhexe. sacab badan oo u sameeyeen ka qaybgalayaashii shirka ayuu ku kasbaday markii uu sheegay in Trump ficiladiisa ay agardaaminayeen xuquuqda dadka reer Falastiin. bayaan uu Faki soo saaray Khamiista ayuu ku sheegay midowga Afrika uu codeeyay mowqifkiisa ku aaday laba dowladood oo iska barbar dhisan lagu xaliyo arrinta Falastiiniyiinta iyo Israiil, taasina ay muhiim u tahay nabadda guud ahaan gobolka bariga dhexe. Ilhan Cumar oo gobolka Minnesota u matasha aqalka wakiilada Mareykanka Koongareeska ayaa hogaaminaysa koox u ololeynaysa in maamulka madaxweyne Joe Biden uu abuuro gole qaabilsan la dagaalanka islaam nacaybka. gabadha ka tirsan xisbiga talada haya ee dimuqraadiga ayaa arrintan la kaashanaysa xildhibaano kale oo ay isku xisbi yihiin. Ilhan iyo kooxdeeda ayaa ugu baaqay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken inuu yagleelo xafiis gaar oo ka shaqeeya hawshaas xilli dambiyada la xiriira islaam nacaybku ay ku sii fidayaan guud ahaan caalamka. xildhibaanada kale Chris Page,
jadi jayo iyo ilhaan cumar ayaa sidoo kale saxeexay warqadda loo diray dowladda. sidoo kale waxaa qayb ka ah rashiida dalaayiba oo haweeneyda labaad ee muslimka ee aqalka wakiilada ka tirsan. qodobkaas ayaa guniya gabagabo u ahaa warka qool media tv. inkaynu ku kulmi doono warkan warka xiga waxaad kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.